abaarashantii galabnimo iyo dheeraad waxaa si rasmiya caasimadda Hargeysa iyo nagwaxigeeda uga bilaamay roob weyn oo watay dabaylo kaasi oo muddadii uu da'aya keenay inta la ogyahay dhimashada 3 qof iyo dhaawac gaaraya 18 qof waxaa kaloo uu khasaare weyn u gaarsiiyay roobkaasi hanti badan oo kala gadisan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada barasaabka gobolka Maroodijeex iyo ku-xigeenkiisa maayirka caasimadda Hargeysa taliyaha guud ee ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah taliyaasha kala duwan ee ciidamada ayaa kormeer u kurgalida waxa ay caawa ku soo mareen goobaha kala duwan ee khasaaraha u gaarsiiyay roobkaasi gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo kormeeray cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo la keenay dadkii dhimashada iyo dhaawac soo gaaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay madaxda ciidamada iyo dhakhaatiirta la tacaalaya dadka dhaawacyadu soo gaaray intaasi kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si toos ah jiraad ugu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland kaasi oo shacabka si toos ah uga hadlay telefishinka qaranka Soomaaliland waxaana uu madaxweynuhu ka waramay roobkaasi iyo waxyeeladiisa galabta waxa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka daay roob weyn oo nimcada Ilaahay ah nimco waliba nusqaanteeda way leedahay roobkaasi wuxuu lahaa dabayl xoogan oo ka horeysay dhibaatooyin buu geystay dadka dhintay waa 3 Ilaahay ha u naxariisto qaran ahaan tacsibaynu u daraynaa dadka dhintay qoysaskoodii ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsideynaa iyagana Ilaahay ka hageeyo jannadii firdawsa shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sidoo kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxa waadadu noo sheegeen eelo jannadii marka Ilaahay ha u naxariisto dhaawacuna waa 18 Ilaahay mahadii dhaawaca badankoodu waa ladan yihiin waxa imka kooma ku jira ma jiro 2 qof baa u daraa iyagana imka waa hadlayaan oo koomada waa ka baxeen dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guriyarheena ma badna wayse jiraan dhibaato weyn magaalada waxa u geystay cidhiidhiga la galiyay meelaha biyuhu marayeen waxa kale oo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xaysiiska ah oo laga sameeyay biraacul culus oo si aan adkayn dhulka loogu qotamiyay qalabka ay ka sameeyeen oo cuslaa oo u baahan dib u noqosho qalabada laga taagay halka dawladda hoose iyo shirkadaha xayska sameeyaba inuu marka hore qalabkaasi uu noqdo mid fudud oo dadka waxyeelada markuu dhacayo marka labaadna la adkeeyo waxayna dhibaato ka ah xariiqada electriga iyo shirkadaha qaado waxa soo dhan asaas ma lagu sameyn doonaa qaranku guud ahaan shacabiyada dawladda gurmud weyn waa la galay wixii la badbaadin karo iyo wixii la qaban karo roobka dhexdiisa waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha oo dhan waa gurmadeen gaar ahaan labada wasaarada hawsha aad u khusayso oo dakhliga iyo caafimaadka haday dhaawac qaadisay tahay iyo haday daweynta dadka u shaqeynta tahay iyo hadii amaanka ay tahay waa la dadaalay waxa gobolka Maroodijeex barasaabka iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawl weyn bay galeen iyo dawladdiisa hoose oo yana aad iyo aad u dadaashay dadaal badan oo jira wax badan lagu badbaadiyay waxaanu isleeyaynaa 2 qodob ciidamada qaranka meelay joogaanba booliis iyo debdemis iyo ciidan iyo kuwa kale abniga waay ciidan waliba halkiisa buu ka galay ilaa haddana waa ku jiraan wixii uu dad qaad badbaadada iyo qabashadana iyaga hawl badan ka qabtay dadka shicibka waa dadaal qof waliba halku joogayba waa Ilaahay mahadiiska dubnadaas 2 qodob baynu u baahanahay oo roobka mar walba inuu soo noqnoqda inaynu wacyigelin ahaan ka wada qaado talaabo ka wada qaado dadku meeshay degayaan haday biyo xidhaan dad badan waxa ay dawladdu waxay qorshe weeyay waxaba laga yaabaa inuu qorshe hore ku degay waxaba laga yaabaa intuu dhistay inay noqotay waara guriga dubiye maxaa laga yaabaa oo si qartaas wax loo dhiso horta biyo weyn xidhnay magaalada meel walba oo dhisnay dadka degan meelaha biyo waxay u baahan yihiin inay iyagu soo badbaadiyaan qaran kale ka badbaadiyaan dhibaatada 2 shirkadaha dabka magaalada u gudbiya in badan waa ku celinay hay'adaha ku shaqada leh iyo wasaaradaha ku shaqada leh iyo ciidamada waxaan soo toos amreynaa inay talaabo adag nabadgelyo ka qaadaan 2 qolada dabka gudbisa si uu gudbiya dabkaasi inuu amaan yahay iyo qolada xaysiiska biraha culus meesha soo dhigtay dawladda hoose iyo wasaaradda arrimaha dhulka hawlaha guud waxaan isku tagi bal waxa dhisan mooyee biyaha magaalada mar walba dhibaato ka dhacayso in xal loo helo tano qura ma aha magaalo waliba waa caynka
oo roobkii maanta ku dhacay magaaladii ku dhacaaba waa intaa in leeg mar labaad tacsiir dadka u darana ilaahayna waxaanu uga baranoo jannada ka waraabiyo dhaawucuu inoo leedayahay waxa kale ee dumay ama wada ama gaaro qaadeen asaaskooda tirada lagu jiraa dadkii soo gurmaday ee ciidan leh ee wasaarada leh ee dhakhaatiir leh ee dibdamis leh oo mahadnaqaynaa waanu ku bogaadina hawshaada qaranka u noqdeen inay sii wadaan qolada wartabinta wasaaradda warfaafinta oo hadda aan u soo galnay oo ku mahadnaqay inaad diyaar ahaydeen oo aanay waxba dhulkeed ka oolin oo heegan waahaydan wixii ka soo qarabeen aad dadka gudbisaan axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.